آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. All praise be to Allah alone first. Today our lesson is about conversation 4. عشركن ما تحكوا سابسين conversation 4 ووضع hadalka ama sheekaysigaas afraad. Where were you born halkeebaad ku dhalatay? Where were you born halkeebaad ku dhalatay buu weydiinay marka A iyo B ayaa wada qaadanaya. Where were you born halkeebaad ku dhalatay? I was born waxaan ku dhashay in Hargeysa ku dhashay. The capital city عاصمة of Somaliland. Where were you born halkeebaad ku dhalatay? I was born waxaan ku dhashay the capital city عاصمة of Hargeysa ayaa caasimada Somaliland. I was born waxaan ku dhashay marka waxa weeyaan waa baasti wax tagay weeyaan. I was born waxaan ku dhashay in Hargeysa waxaan ku dhashay the capital city caasimada of Somaliland. What do you do maxaad qabataa? What do you do maxaad qabataa? I am a hawker dilaal baanahay. I am anigu hawker dilaal baanahay. Are you married miyaad guursatay? Are you married miyaad guursatay? No maya. I am still single weli maya keli baanahay. I am still ilaa hadda single keli baanahay. No maya, I am still single weli keli baanahay. Why don't you marry maxaad guursan weyday? Why don't you marry maxaad guursan weyday? Because I don't have anigu ma haysto maxaa yeelay ma haysto because maxaa yeelay weeyaan I don't have ma haysto enough money lacag ugu filan adiguna markaa maxaad guursan weyday? I'm too young aad baan u yarahay to marry inaan guursado. I'm too young aad baan u yaray to marry inaan guursado. Conversation 4 wada sheekaysiga afraad wuu yiri bon xagabaad ku dhalatay. I was born waxaan ku dhashay in Hargeysa the capital city caasimada of Somaliland. What do you do maxaad qabataa? I am a hawker dilaal baanahay. Are you married miyaad guursatay? No maya, I am still single maya weli keli baanahay. Why don't you marry maxaad guursan weyday? Because maxaa yeelay I don't have ma haysto enough money lacag ugu filan and you adigana I am too young buur aad baan u yarahay